maanta waxaan maraynaa waddankeenu uu marayaa labo track oo culculus ayaynu ka dagaalamaynaa mid waxaynu la dagaalamaynaa cadowga khawaarijta oo dalkeennu runtii ragaadiyey dalkeenna oo aan diyaar u nahay inaan iska dulqaadno oo har iyo habeen aynu dagaal kula jirnaa midka kalena waa traagii kale ee horumarka iyo maxaan ku dhahaa dimuqraadiyadda iyo inay dadkeennu ay xuquuqdooda dastuuriga helaan iyo dawlad dhisidda kaasna waa traag kale marka labadiiba maanta si simultaneous ayaan u wadnaa oo siman marka waxaan rajaynayaa insha Allah labadaba waa ku guuleysanaynaa dad kale doorasho dalkan kama dhici karto xora oo xalaal ah oo qof iyo cod ah waxaa beeninaya dadkan meesha taagan maanta oo le waan rabnaa xuquuqdanada cidna uma ogolin qof go'aan nooma gaarayo annaga go'aan gaareen dadkan meesha waxay u taagan yihiin inay go'aankooda ayagu gaaraan oo aan qof u gaarin ayay u taagan yihiin inay awooddooda ayagu helaan bay u taagan yihiin in aan loo fasirin dastuurkooda ayay u baahan yihiin ayagu fasirtaan inay gacmahooda ay ku raadsadaan siyaasadda xuquuqdooda siyaasiga ayay dadkani u taagan yihiin meesha in dadka Soomaaliyeed sinmaan oo 4.5 laga baxo oo aan dad la dhihin half baa tihiin oo aan dhihin waa laydinka badan yahay hadday imaanaysaa ciddii laandheeraa iyo laangaabku hadduu imaanaa degmadii dadkeedu soo bixi waayaan ee ay kaararka qaadan waayaan ayaa degmo laangaaba noqon doonta degmadii dadkeedu soo baxaan oo ay kaararka qaataan degmo laandheera ay noqon doontaa maxaa jira xildhibaanada ayaa lagu salayn doonaa tiradaas ayaa lagu salayn doonaa marka haddii ay xildhibaanadu ay kugu yaraadaan dadkaaga adoo soo saari waayey mas-uuliyadda idinka iyaga qaaday degmadaas iyada qaadaysa